ninkii yiri maxaa laygala tashan waayay doorashadii ka dhacday gobolka Banaadir ee golaha deegaanka ah ayay fariin degdeg ah u direen inta waxgalka ah ee waxgaradka ah ee uqaasha ah ee salaadiinta ah intooda fahamsan muhiimadda wadajireed dowlad iyo qarameed ee Soomaaliya ee ka soo jeeda deegaanada Puntland سعيدني أو حناقسن كنا حناقسن محاد دورش لوجو قبت قبل كبنادر محي شعب كصومالي عد كذا وديبتين محي شعب كصومالي قبل كبنادر السوق جرا هو يوين عبيال يعرور قنجار أو حق ولا إن واحد دورتان لنا دورته لا يقال تشون ويدرته وقع مصيب مسير كصومالي أي كلن دق أو يكون يشنجروبي وحي كل شيء إن وقولك وكسر حري كصباح وحي يراهدين فضلا سعيدني كصباح قولك عاد كسر حرتي أو إن كحنافسن تهاي دورشتي كدعد جودها ضلك صوماليا جارهان مقعد عاصمة ده مقدشو قف يعد كأهد يد دور مالين كهر أنت دورشة يسندعين التلمامي سي إن ودن كقرح وكرد عايو لكن يسندعين إله مهدس waxa ay odaasha yiraahdeen waxaan si cad u taageersanahay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaan diideynaa nidaam kasta oo go'aan soo taag ah oo gobolada waqooyi qoseeya waxaan diideynaa ay yiraahdeen in Siciidan uu qol ku soo xiro isaga oo ka xanaaqsan maxay doorasho u dhacday laakiin aysan u kala saarneen doorashada dadka Soomaaliyeed ee xaq u leeyihiin waajibaadka dastuuriga ah Xasan Sheekh Maxamuud iyo qadiyada dowlad iyo badeed iyo dadeed ee Soomaaliya labadaas ay sheegeen in Siciidani aysan u kala saarneen laakiin iyaga oo ah odayaasha dhaqanka ee asiga matala ay ugu baaqayaan in uu qol uu ku soo xiray oo mugdi ah kaligiisna uu ku yahay shacabka Puntland oo ku matalin in uu ka soo baxay ugu baaqeen dani ma uusan soo saarin warqad ugu yar oo uu ku sheegayo in haddii uu yahay goboltooraha ama gudoomiyaha deegaanada Puntland oo arintaasi ka soo horjeedo kuma uusan sheegin isaga iyo ninka la yiraahdo Axmed Madoobe waa labo sida hore u sheegay Fahad Yaasin diidan nidaamka dawladeed qarameed amni siyaasadeed horumareed ee dalka Soomaaliya taasi waxa cadeen u ah ay yiraahdeen siyaasiyiinta qaar iyo odayaasha kulmay in dani iyada oo laga maarmo warqadda uu soo saarayo oo ay ka badan yihiin muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo awoodda dawladeed ee federaalka Soomaaliya in uu aamusay qol isku soo xiray ilaa ay haddana uu leeyahay sidee doorasho ugu dhacday Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho maxaa aniga la weydiin waayay isagoo federaalkii ahayn ehna gudoomiyaha ama goboltooraha ama hogaamiyaha dawlad goboleed isagoo ah haddaba odayaasha dhaqanka arintaasi gartay dawladda federaalka waa muhiim inay uga mahad celiso oo ay tiraahdo mahadsantiin haddii ay tihiin dhaqanka Soomaaliyeed ee Puntland waana idinka qabnaa talaabadii aad qaadeen in ay tiraahdo dawladda Soomaaliya oo ay u bogaadiso waana laga maarmaa shakhsi iyo shakhsiyaad waxaana ka badan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. Assalaamu calaykum.